السلام عليكم ورحمة الله. مقعيقو رحمة علمي. مقعيقو رحمة علمي. صومالي أسبوع عم برتايا إن لو ذاقايا أسبوع ولا صورة في محاي إن لو ذاقاي مهما هي صومالي أو إلى شرقريان أصحابتي أن فيسبوك صاحبة ذا كنا هاي أسبوع أنا وحن إن لو ذاقايا وحيابو أصحابتي أرضت كميد أي إيسو قرين خير الله سيو بيل بحاجرة معلن أو Soomaaliga qora oo Soomaaliga ku nool wiilka ayaa wuxuu ii soo diray dhowr wax oo maaragtay basics-ka Soomaaliga marka la baranayo aas-aaska qofka Soomaaliga sideedoo kale yaqaana Soomaaliba aan hadda Soomaali baan ku hadlayaa laakiin sarab inuu si korsado aqoontiisa qofkaas oo kaleeto waxyaabo u baahan yahay inuu ogaado ayuu wiilka ii soo qoray khayr Allah si wiilkaas macallin ayuu ii noqday wallahi aad uu ii caawiyay midda kale waxaan la yaabay oo aad aan la yaabay waxa baan niyada ku qabanaya oo aan rabaa inaan sameeyo ama luqadda rabaa inaan barto ama meel aan rabaa inaan u travel gareeyo wixii niyad aan isla waqtigaas ku hayay oo aan ku taamayay wixii wax iga caawiya ilaahay ii soo diraa subhanallah marka waxa marka laga hadlayo law of attraction marka qaar waxaan is dhahaa ya and I was skeptical wallahi marka qaar waxaan is dhihi jiray waxaan ma wax jira law of attraction ما وحدتك إسكا سمستينا ما وحواش كي يجي لكن سحد إنه رونتا law of attraction والله هدرتانا أوجاده صابته إن صدق مركز أساس يوتيوب كي أفري وحنكو قري ماشى إن معركتي إن قفكا أدكو أوجاني يصير وقت يوتيوب كفرتي يوحصل دمير حصل information خف ماشي وقري يوحوي هاي ماشي سامحان كو قري waxaan ahay qof jecel inuu dadka uplift gareeyo waxaan ahay qof makeup iyo qoys qurxinta waxaabahaas jecel waxaan kaloo youtube kaanita u furtay in aan luqadayda ku barto taas oo iga sii dhumaysay bariyihii dambe meeshaas ay ugu qoran tahay it was 1 month ago markii aan ku qoraay sidaas loo subax kadibna waxaan helay dad iga caawiyo Soomaaliga oo subhanallah si free ay iga caawinaya juhdi gelinaya iso screenshot iga soo qaadaya 10 arda kala siiyeen waxyaabihii oo dhan marka qalinkaas heesta habeenkii marka ay buugaas hadda wax dhan igu qoreen 10kii ma arki kartaan xoogaa waxa waaye iftiinahayo markii dadka ay kala saxsaxdaana inta badan aan dadka ugu dambeeya ahaa guriga saxda markaasaan codadkii la isoo duubay wixii baa dhageystaa waan qortaa kulli wixii markaas taas leeyahay inaad qortid waa u baahan tahay marka wallahi alxamdulillah aad afraxsanahay هذا أفرحسنها قفكي جعل إنه لقدي صبرته أما لقد كلت أوبرته ويفضل ده هاي هذا أفضل ده أنا هو حاول أحس أنا وصومالي قف قبر صومالي أيانا هاي صومالي قبل كل شيء ضد كان نقول إنه لوجه اللي جري سداس يجموس رومين لكن سبحان دريمي بريه دمبه إن مركان قفل هالله وهذا الكلا لما يحوجان inkastoo aan inta badan aan ahay qof guriga jooga oo hooyo ah oo guriga dhex jooga oo aan guriga ka bixin oo aan dad la sheekaysan ama aan banaanka aadin marka luqadda way ka dhumaysaa waxaana waa faraq ku hayn inaad ku hadashid aad u baahan tahay alxamdulillah I'm so excited ma sha Allah isoo qora farxadda alxamdulillah aad u faraxsanahay wixii arabaha la Soomaaliya waxa u farxibay waxa 10 kale iga bilaabay markii ugu horeysay first time la iga bilaabay hadal iyo hadaaq hadalku afku wuxuu u kala baxaa afku ama luqaddu waxay u kala baxaa afku wuxuu u kala baxaa afku iyo luqad waa isku mid oo igu dhaha marka hore af iyo luqad waa isku mid afki ayaa wuxuu u kala baxayaa hadal iyo hadaaq hadalku waa hadaaqu waa waxay ilmaha yaryar ay ku hadlaan waa hadaaqu oo markii ay yaryar yihiin oo 6 bilood 9 bilood sanad meelaas uun ka gaar xataa ilmaha dhaqsaha linaa jiro oo hadaaqah way hadaaqaan ilmihii waxa ay sheegayaan lama fahmi karo hadalkina afku wuxuu u kala baxayaa hadal iyo hadaaq hadaaqi waan soo micneeyay oo waa ilmaha yaryar marka ay hadaaqayaan hadalkina wuxuu u kala baxayaa tix iyo tiraab tiraabtu waa hadda sida aan kuula hadlayo oo kale hadda waan la hadlayaa tan oo kale waxay noqonaysaa tiraab markuu madaxweynaha qudbaynayo kale waxay noqonaysaa tiraab markuu macallinkii uu intuu ardada iskugu yeero baareedka oo kale uu la hadlayo tiraab ayay noqonaysaa marka hadalkii wuxuu u kala baxayaa tix iyo tiraab tiraabti waan micneeyay waa hadalka caadiga ah tixdina waxay noqonaysaa tiraabti oo loo yeelay qaafiyad ama xaraf raac qaafiyad ama xaraf raac أنا هدي اللي أورن لها تحية تراب معناه قافية هذا أما حرف رعنا معناه أم قتالينيو ما لح بنصنع حقوق لها ميلك بلا حتى ما نقرتن لكن هذا وانا خانا الحمد لله تحدي
waxaa waaye tiraabtii oo loo yeelay qaafiyad ama xaraf raac loo yeelay waaye. Okay, wuxuu kaloo ii macneeyay macallinku ereyga suugaan. suugaan ereyga suugaan macnihiisu waa hadalka inta ugu xigmada badan. waxaa ka mid ah tiraabta, tixda, mahmahda, halxiraalaha, riwaayadaha, murtida, riwaayadaha. Okay, maxaa kale inta igu qoran? waagii Soomaaliga la qorayay 1972 inay ahaydaan jeclahay ayuu wiilka igu yiri. waagaas ayaa waxaa dadkii Soomaaliga qorayay waxay go'aansadeen hadalka inta ugu xigmada badan inay suugaan ugu yeeraan. marka hadalka inta ugu xigmada badan oo aan soo sheegay oo ay kamid tahay tixdii iyo tiraabtii iyo tiraabta tixdii iyo ay kamid tahay iyo mahmahayadii iyo gabayadii ay kamid yihiin iyo halxiraalihii iyo intaas oo dhan waxay noqonaysaa suugaan ayay noqonaysaa. maanta musiga daaran xaafadeena maanta waa axad. maanta axada dadka dhan guryahay joogaan. may xataa guri maxay yeeray musigaas guri kama imaanayo. I think laamiga gaari taagan oo sameecada waa weyn inuu yahay. sababtoo ah sameecada saas waa weyn dariska naga meesha shidan jirin. gaari waaye of course gaari uu ka dhex daaran yahay. tixda waxaa kaleeto oo muhiim ah oo meeshaan haddana igu qoran oo aad u muhiim ah. tixda waa la soo xigtaa sida heesaha ama gabayada oo kale. tixda waa la soo xigtaa hadda hadraawi gabayga uu tiriyay oo kale ama heesihii uu curiyay heesahaas oo kaleeto waxaa la leeyahay hadraawi ayaa gabaygaas tiriyay, hadraawi ayaa heestaas qoray oo maansadaas qoray. marka waa la soo xigtaa tixda waa la soo xigtaa laakiin si tiraabta lama soo xigto. tiraabta hadda hadalkayga oo kaleeto waxaan hadda aan ku leeyahay waxaa laga yaabaa in markaad videoga ka baxday aad xabadba ka xasuusanba. marka tixda waa la soo xigtaa sidii uu qofka u qoray, qofkaas sidii uu tixda u qoray ama u yiri tixda waxba lagama bedeli karo. waa copyright oo kugu dhacaysa. astaghfirullah, copyright ma noqonayso, copyright aan dhihin, laakiin waxba lagama bedeli karo. gabayga waxba lagama bedeli karo. qofkii tixdaas uriyay oo kale qofka magaciisi waa inaad sheegtaa. marka intaasaan hadda ka bartay isbuucan intaasaan la rafanayay. alxamdulillah, so far so good. khayr ayaa idinku dhaafay. haddaad jeceshiin inaad Soomaaliga barataan sideedoo kale you can do it. ma adka, waa wax sahlan, waa wax bugi qalan ayaad qaadanaysaa marka dadka ay kala saxdaan oo kale ama aad waqti free haysatid oo kale aad qorqoranaysaa notiskaaga yar. waa fun, it's fun wallahi. aad anigoo maarta hadda ugu heestaa waxaan dareemayaa wax sahlan inay tahay sida make-upta loo barto oo suunaha loo hagaajiyo oo kale wax saas oo kale iskaga sahlan inay tahay dareemayaa. wax adag ama daal badan ama dhidid uu kaaga baxaayo ma ahan. khayr ayaa idinku dhaafay dhammaantiin. take care of yourself. maca salaama.